xasan nasrullah oo ah wadaad siyaasiya 11 bishii August sanadkii 1960 waxa uu ku dhashay degmada Matin oo koonfur kaga beegan magaalada Beirut waxana uu ka dhashay qoys Shiica aabihii Cabdikariin Nasrullah waxa uu ku dhashay Baasoriya oo ah tuulo ka tirsan Jabal Amal oo ka tirsan koonfurta Lubnaan kuna dhow magaalada Suur waxana uu ahaa nin iibiya khudaarta inkastoo xasan qoyskiisu aanay ahayn kuwa diineed ayaa haddana waxa uu daneeyay inuu barto diinta islaamka gaar ahaan madhabta Shiicada laakiin waxbarashadiisa waxa uu ka bilaabay dugsiga Al-Najah oo dawladdu ay leedahay kuna yaala magaalada Beirut dugsigaas oo ardaydiisu ay u badnaayeen masiixiyiin sanadkii 1975 markii uu bilaabmay dagaalkii sokeeye Lubnaan qoyskiisa oo ka mid ahaa xasan oo 15 jir waxay u guureen magaalada ay asal ahaan ka soo jeedeen Baasoriya ee koonfurta dalkaasi waxana dugsiga sare uu ku dhamaystay magaalada Suur isagoo halkaasi kaga biiray dhaqdhaqaaqii Amal oo ahaa urur siyaasadeed Shiica Nasrullah waxa uu wax ka bartay maqaam Shiicadu ay lahayd oo ku yaalay dooxada Biqaac oo ku dhow magaalada Baalbeek maqaamkaasi oo lagu bixin jiray duruus uu dajiyay wadaadkii reer Ciraaq ee Ayatullah Maxamed al-Sadr kaasoo dhaqdhaqaaqii dacwa magaalada Najaf ee wadanka Ciraaq ka asaasay sanadii 1960 xasan Nasrullah waxa waxbarasho uu tagay magaalada Najaf ee wadanka Ciraaq laakiin Nasrullah waxa lagu qasbay inuu ku laabto wadankiisa Lubnaan sanadkii 1979 isagoo aan dhamaysan qaybtii hore waxbarashadiisa Saddam Hussein ayaa waxa uu masaafuriyay dad badan oo Shiica ahaa oo uu ka mid ahaa Ruuxullah Khomeini ama Ayatullah Khomeini oo markii dambe madax ka noqday wadanka la dariska Ciraaq ee Iiraan kadib kacaankii islaamiga ahaa ee wadankaasi ka curtay sanadkii 1979 iyo Abbas Musawi hogaamiyihii ururka Amal markii uu ku laabtay wadanka Lubnaan ayaa Nasrullah waxa waxbarasho uu ka bilaabay dugsigii uu asaasay hogaamiyihii Amal ee Abbas al-Musawi iyadoo markii dambena loo doortay xubin ka tirsan dhaqdhaqaaqa Amal una qaabilsanaa dooxada Biqaac sanadkii 1980 ayaa Saddam Hussein waxa uu dil ku fuliyay hogaamiyihii Shiicada ahaa ee Maxamed al-Sadr xasan Nasrullah ayaa waxa uu ku biiray ururka Xisbullah kadib markii Israa'iil ay qabsatay wadanka Lubnaan sanadkii 1982 sanadkii 1989 ayaa waxa uu socdaalay magaalada Qum ee wadanka Iiraan isagoo halkaasi u tagay waxbarasho sare oo diinta ah xasan Nasrullah ayaa waxa uu aaminsan yahay in diinta islaamku ay xal u tahay dhibaatada bulshada ka taagan adduunyada oo aanay ahayn diin lagu tukado salaada waxna lagu baryo oo kaliya balse ay tahay mid ka jawaabaysa su'aal kasta oo qofku uu ka qabo danta guud iyo midda gaarka isla markaasina islaamku yahay diin loo soo dajiyay ummadda sanadkii 1991 waxa uu ku laabtay Lubnaan isagoo sanadkii 1992 noqday hogaamiyaha ururka Xisbullah kadib markii Israa'iil weerar dhanka cirka ay ku khaarajisay hogaamiyihii ururkaasi Abbas Musawi bilowgii intii hogaanka uu hayay ururka Xisbullah ayaa waxay samaysteen gantaalo ridda dheer oo ay ku garaaceen waqooyiga Israa'iil waxana taasi ay keentay in Israa'iil ay kaga jawaabtay hawlgal ay ku burburisay kaabayaashii dhaqaalaha ee wadanka Lubnaan hawlgalkaas oo Israa'iil ay ku tilmaantay markii dambe mid laga gaaray guul waxana heshiis ay kala saxiixdeen labada dhinac uu dhigayay in Israa'iil ay joojiso duqeymaha ay ku haysay Lubnaan iyo in Xisbullah ay ogolaadeen joojinta weeraradii ay ku hayeen waqooyiga Israa'iil culaadda labada dhinac ayaa dib u bilaabantay sanadkii 1996 markii Israa'iil hawlgal ay fulisay ay ku xayirtay dekadaha wadanka Lubnaan iyadoo sidoo kala duqaysay saldhigyadii ciidamada Suuriya ay ku lahaayeen Lubnaan kadib 16 maalmood oo uu socday dagaalku ayaa waxa heshiis gaadhay Israa'iil iyo Xisbullah Israa'iil gudaheeda ayaa waxa ka abuurantay dood ahayd in joogitaanka ciidamadooda ee koonfurta Lubnaan ay joojin karayso gantaalaha Xisbullah ay ku soo ganayeen waqooyiga Israa'iil iyadoo markii dambe ay cadaatay inaanay taasi joojinaynin waxana soo jeedinta siyaasiyiintu ay noqotay in xalku yahay ciidamadooda oo ka baxa koonfurta Lubnaan ra'iisul wasaarihii Israa'iil ee waqtigaasi Ehud Barak ayaa ciidamadiisa kala baxay wadanka Lubnaan sanadkii 2000 isla waqtigaasi Israa'iil waxay samaysay ciidan gaar ah oo Lubnaaniyiin ah oo ilaaliya xuduudda u dhaxaysa labada wadan laakiin ciidankaasi ayaa waxay noqdeen waxay qabtaan ururka Xisbullah iyo inuu firxatay dhanka Israa'iil taasoo kor u qaaday magaca ururka Xisbullah uu ku lahaa gudaha Lubnaan iyo dunida islaamkaba 14 bishii February ee sanadkii 2005 ayaa waxa shirqool lagu khaarajiyay ra'iisul wasaarihii hore Lubnaan Rafiq al-Hariri waxana dilkaasi lagu eedeeyay Xisbullah iyo Suuriya inkastoo labaduba ay beeniyeen
laakiin xubno ka tirsan xisbullah ayaa dembi lagu helay. mudaharaado soconayay muddo ayaa keenay in lubnaan ay ka baxaan ciidamadii suuriya ee taageerada u ahaa ururka xisbullah iyo israa'iil ayaa foodaystiray dagaal soconayay muddo 34 maalmooda, waxaana dagaalkaasi uu bilaabmay kadib markii bishii Julaay ee sanadkii 2006 xisbullah weerar ay ku qaadeen laba ka mid ah gaadiidka gaashaaman ee ciidamada Israa'iil oo xadka kormeerayay, waxaana weerarkaasi lagu dilay 3 ka tirsanaa ciidamada Israa'iil iyadoo xisbullah ay u suura gashay inay qafaashaan 2 askari. markii dambena wax xisbullah ay soo jeediyeen inay ku bedeshaan maxaabiis ay ka haysay Israa'iil, laakiin Israa'iil ayaa diiday, waxaana ay kaga jawaabtay weerar cirka, dhulka iyo badda oo ay ku qaaday Lubnaan. waxaana weeraradaasi Israa'iil muddadii ay socdeen lagu baabi'iyay saanad ay lahaayeen ciidamada Lubnaan iyo kuwa xisbullah iyo goobaha rayidka iyo waliba kaabayaasha dhaqaalaha uu ka mid ahaa garoonka diyaaradaha caalamiga ee magaalada Beirut. dagaalkaasina waxa ku dhintay ku dhawaad 2,000 oo qof oo reer Lubnaan iyo 165 ka mid ah ciidamada Israa'iil. inkastoo dagaalka Israa'iil ay qaaday uu si weyn u wiiqay dhaqaalaha waddanka Lubnaan, haddana waxa loo arkay guul uu gaaray ururka xisbullah. ciidamada Israa'iil waxa waqtigaasi u suura gashay in xuduudda koonfureed ee Lubnaan ay ka gudbaan dhowr kiiloomitir oo kaliya. sanadkii 2007 waxa iscasilay taliyihii guud ee ciidamada Israa'iil Dan Halutis, inkastoo iscasilaadiisa uu ku sheegay inuu la shaqayn kari waayay dowladda Israa'iil. hase ahaatee dadka ka faallowda militarigu waxay sheegeen inay sabab u ahayd guushii ciidamadiisu ay ka gaari waayeen ururka xisbullah. xasan nasrullah oo ku magacaaban xogayaha guud ee ururka xisbullah waxa uu qirtay in ciidamadiisu ay ka garab dagaalamayaan kuwa Suuriya ee dagaalka kula jiray mucaaradka ka soo horjeeday, waxaana uu ku sifeeyay dagaalkaasi mid ka dhan ah argagixisada. Israa'iil ayaa dhowr jeer waxay ku guuldareysatay shirqoolle ay doonaysay inay ku khaarajiso xasan nasrullah.